waxa ugu quruxda badan dunida lama arko lamana maqlo balse waxaa laga dareemaa qalbiga. waxaa sidaa dhahday Helen Keller. dhammaanteennaba marka aan maqalno ereyga jacayl waxaa maskaxdeena ku soo dhaco dareen qurux badan, qof kastana raba inuu la noolaado. waxaa dhici karta in qaarkeen soo xasuusanayaan dhacdooyin xanuun badan oo ay la kulmeen, qalbigoodana u danqanayo. waxaan filaa inaad qof jeclaatay ama adiga lagu jeclaaday, ama si kale haddii aan u dhigo waxaan hubaa ugu yaraan inaad aragtay laba qof oo isjecel. haddaba muuqaalkani waxa aan kaga hadli doonaa sidee wax loo jeclaadaa. inaad qof jeclaato ma adiga ayaa ka dambeeya mise dareenka? maxayse qaarkeen uga dhigaan inay wax jeclaadeen iyagoo aanan ogeyn? jacaylku waa dareen uu ilaahay ku beeray qof kastaba, lab iyo dhidig. ilaahay qof kasta waxa uu ku abuuray dareen u gooni ah, qofna lama dareensinid. dadkoo idil way kala dareen dugan yihiin, qofba si buu wax u dareemaa, xitaa marka aan eegno xagga dareenka jacayl. cishqigu waa dareen qofka isku beero marka uu arko qof uu ka helo, maskaxdiisana u sheego in qofka uu dareen xiisaha u hayo. dib u xasuusashada qofkaad u xasuusanaysid ayaa ah fariin ka dhigan in maskaxdaada ku amrayso in qofka ay diiradda saarto. maskaxdii waxa ay si saxan u qaadanaysaa fariimaha ay helayso ilaa ay abuurto dareen u gooni ah qofka. waana sababta keenaysa in dareenkaagu isbedelo marka aad aragto qofka aad ka heshay. waxaa laga yaabaa in wax dhaqdhaqaaqa aadan samayn intaad qofka aad kaaga dhowdahay ama aad fiirinayso, kadibna marka qofka kaa tago ama uu ku dhaafo dareenkaaga si caadi ah kusoo noqdo. haddaba waxaan filaa inaad la socotid sidaad naftaada ugu qaabeynayso in qofkaasi aad dareen cishqi ah u qaado. qof kasta oo dareen cishqi ah aad u qaaday adiga ayaa sababta ugu qaaday la imaaday. midna ogow, dareenka adiga kugu goonida ah waa cishqi, laakiin ma ahan jacayl. jacaylku waxa uu yimaadaa ka gadal marka lagaa aqbalo dareenka cishqiga. jacaylkuna waxa uu ka dhalan doonaa wada dhaqankiina, wada sheekaysiina iyo is-ixtiraamkiina. cishqigu meesha uu ku dhammaado ayuu ka bilowdaa safarka jacaylka quruxda badan. waxaan filaa inaad fahantay sida wax loo jeclaado. haddii halkani aad soo gaartay maxaad sugaysaa maad muuqaal kala garaysid? sidoo kale la sheegaray asxaabtaada.